الله الرحمن الرحيم waxaan ku sugannahay xarunta tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed halkaas oo ay si habsami uga socdaan diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka muxuu ahaayay iyo diiwaangelinta lagu dooranayo maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale la dooran doono maamulada kale ee gobolada dalka waxaan u mahadcelinaynaa guddiga doorashooyinka iyo soo hadimaha oo si habsami u wada bixinta kaararka codbixiyayaasha maanta anigu oo bishu tahay 10ka bisha December waxaan qaatay kaarka codbixinta anoo ka qaatay tiyaatarka qaranka oo ah goobaha kamida degmada Wardhiigley waxaan ku boorinayaa dadweynaha ku noqon gobolka Banaadir inay qaataan kaararka kana qayb galaan doorashooyinka fursadaas oo ah fursad aan la heli karin halkii lagu doori lahaa mas'uulkaaga dooro mas'uulka adiga aad shaqada u dirsanayso qofka aad jeceshahay aad ku aaminsan tahay mabaadi'diisa iyo barnaamijkiisa ayaa dooran kartaa xisbiga aad doonto ayaa dooran kartaa waana doorasho xor iyo xalaal ah oo Soomaaliyeed muddo ayaan sugaynay oo aan ku soo jiray beelo iyo in dadka loo dooro waxay doonayaan marka fursadda waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed dhalinyaro waayeel dumar iyo caruur qof kasto da'da gaaray inuu ka faa'iideysto oo ka qayb galo si isbedel loogu sameeyo dalka qofkuna aanu oran waa lay dooray ee loo doorto fursadda maanta aad haysataa ka faa'iideyso shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir aad baa u mahadsantiin